صلاة بدكنا أسي صلاة بدكنا إنجاز مية أقل ماشي wax lagu qaban lahaa taagantaa shay war hadalka wad hadalka maxaa wadanaa waxaad yani maxaa xabada keen lagu dhiftan marxumka ma aqaan anu yaa keen walaal sacadkayga shaqo kuma leeyahay maxaa dan leedahay ii sheeg asaka cariis ها وعلى إنجير أنت قلين إسبارة طالع نعس كالمر ما هو تاكل ها قرب دوان قط جايب بان كل شيء حبس يعني كان موبايلك قاعد ماشي وكل حبدوك وقاعد ويلكاغ يران كاغا لدلي مساجد سوق صوب على الدلي موبايل يريس لو دلي ياه وادنت الله ونحرس مرحوم عبد الله عبد انت مرك aabba ku geeriyooday Sacuudiga iyo dhacdada ka dhacday Afgooy waa laba aan iskori karin waxa lagugu eedeynayaa dambiga ah dilkas ah kadib markii aad si bareer ah u dishay marxuum Fatxi Cabdullaahi Cabdi taariikhdu markay ahayd 16 bishii 2026 falkaas oo ka dhacay degmada Afgooy sidoo kale waxa dhacdadaasi u geeriyooday aabbaha marxuumka Cabdullaahi Cabdi Muuse kadib markii uu maqlay geerida wiilkiisa taasoo adiga sabab u ahayd eedaasi ma gashay mise ma gelin dada ka qabtaa eedas horta waa bahash waa iga fakatay ninka ay iga fakat ka fakaday habad iyo ku fakat ninka see wax u dhaceen yaa dhaa bahash saare raay gacanta saas haytay markan guriga hoos u noqsay lahay saas adna raay markan waa fakatay habad markan ninka oo ku yaala aragay sababta maxay marka hore maya waxa la isku dagaalay lanka maarad isma naqaanani marka meesha isku aragnay laba qof ahayn waa carmada waa carray roori ma reeniyo inta soo taaniyo walbana gobol korto leeyahay dhaba wadaha inagadi hoobaha inagadi ma reeniyo labada gacmood saana sari laki ninka labada gacmood saana soo qorgin intaana igu jira saana markan ma galay gadaal saawir gurigiisa soo roy irta dusha inta saaro aniga leeyahay habada liga ka baxtay ma ogalaa maxaa qabanaysaa may aniga markii hore shaqo roonda jirino shaqo roondi ka maganaya roondi jari roonda hoban akunagadi hoban akunay haradan soodi haradan soodi hirgilay arada amba gal haba no leer haradan soodi ano goolad meesha ku digaw maray lama qof oo meesha suru hada barteeragan tabliid la jir tableedkii roor aawadaani ay wareegsaday markan may galay lankan arab horahay talan say walooyin ariniyo say waanaga say walkooy aniyo ana walba manooqo waa korto leeyahay labada gacmaad aawaday bani ba gacmaha ugu dhab gacmaha labada gacmaad ugu gadaal sagarino gadaal haba saneer markan may galay lankan guriga kiilo qobsada lankan guriga amashi mar horba furnay guriga ma gashay singureeji afiisa saay singureeji gadaal inta saaroy dusha saaroy lankan nugu deeniyow ee guriga kiilo qobsanay laayno marka aba saneeray markan habadi bush lankan dhulku yaala aragani abada guriga ku dhida ka kaldida ki meeshu ku dhida lankan la ilaaha illa oo yaala asaasay waxa bilaayana mana dhaxmar wax buuga kale mana dhaxmar maska saan bagi ilaahay inta li soo dadjeedi iyo nali sheeg qorsho oo ma iska dhihini anina magadanka madagani marka halka sajar xeelali ماذا قدومي محكمة شرفت له سنة وحو دلدلايو دن wax ka jira male saana qori dhahay kana inta mare iyo qoraya gadaal mare iyo qoraya isridiyo hada sheeko inuu dhacsiya sheekaas waa muu gudoomiye garsoor maxkamad sharafta leh sane Mukhtaar Shakuur Amin Jay wuxuu ka tirsan yahay ciidanka kanisa Afgooy waliba macmuusleyda oo dhawaan la qalabeeyay waxa xusid muu gudoomiye in uu dhac ka geysanayay xaafadda Baalguri ee degmada Afgooy xaafadaas mobilkan uu soo dhacay qori dood kala saaran ma mobilkan waxa xasuusanaad mobilkan uu soo dhacay yuu dhacay waa joogiyaa inta ku dhacay wabiga waa joogiyaa saas sheegi doon muu gudoomiye marxuumka dhac u geysanay waqtigaas markuu dilay waa joogiyaa masaajid ku soo baxay beed Allah
marxuum Fatxi waxaa la socday ku dhawaad odayaashii xaafadda oo 6 qof ah oo hadda maxkamadda aan hor keen doono hal usoo gali doono beed alla asoo soo baxay uu yiri mobilkan nin tabliiq oo qoray oo asla tabliiq masaajidka ka wacdinaya kamid ah oo tabliiq la yiraahdo oo hadda fadhiya maxkamadda oo asoo ku dhaganaa hadana marxuumku u imaado marxuumku wuxuu noqday kii saddexaad intaas waxaa socda borseeska oo dhacaya socda waxaa ka dhashay guddoomiyey in marxuumkii mobilku u tuuray markuu u tuuray kadibna eedeysanaha uu ku tirshay xabad marxuumku uu meesha ku dhintay dadkii masaajidka uu ku dilay ayaa maxkamadda keenina lambar la waxaa maxkamadda keenina xaafadaas inuusan ku qorneen shaqana looga dirsan amnina uu ka sugeyn taasoo beeninayso mamarsiyada aan soconayno oo iska dhaxda ah talihiisa keenina tali hurunkiis oo aqoonsan doon intaan keenina gudoomiye waxaa xusid mudan dhacdada markay dhacday kadib isla waqtigaas waxaa loo sheegay marxuum Fatxi inuu dhintay aabaha dhalay marxuum Cabdullaahi waa san dhintay Cabdullaahi Cabdi wuxuu joogay Sacuudi wiilkiisii qaaliga ahaa in la dilay mobilka noocaana loo dilay ayaa loo sheegay isla waqtigaas waa dhintay naxdinta darteed sabab uu ahaa idan iska badheeyna waxaan keenaynaa inuu dhintay waxa cadeeyahay qabrigii muuqaalka laga duubay warqadii Sacuudiga ka soo baxday cadeeyay shahaadada dhimashada waddanka Sacuudiga ka soo baxday waxaas oo dhan aan keeni doonaa maxkamadda sharafku waxa ka codsanaynaa in loo yeero marga koowaad si uu warbaxsho dhacdada kiisa waxaa dhintay meeshan Fatxi Cabdullaahi Cabdi oo dhintaan isku haystaa ninka odagana u diiday si fiican adii inta joogtay see wax u dhaceen hoostiisaan joogo horteeda ku dilay see wax u dhaceen noo sharax marka se waxa u dhaceen nin tabliiqo ninkaan ku dhagnay mobilka inuu ka qaato nin tabliiqa masaajidkaan ku soo wada baxnay nin tabliiq asoo ku dhagan mobilka qaadan rabo ayaan ka celi yaa ka celay anaa ka celi ninkaan xoogaan u sheegtay in adees oo muuji bas markii aad ninkaan ka soo buray ninkaan uu ku jeestay Fatxi uu ku jeestay mobilka yaa Fatxi keenan dhahdo qaadan karo dhulkaan ugu tuuray mobilkii hadoo dugaan la laba diin ku kortaga qalfood leeyahay mobilkii hadoo dhulka oo laalo ku kortaga ka qaad qoray dhama labadiina Allah asdaysin ila hal qafood maalkaaga inta ku soo weeraray bas muxuu gali dilaya meesha mobilka maray xabaduu ku qaaday ninkaan mobilka hormaray mobilka agtiisa u tagay almeel aan wada joognay laag agtaan ninkaan soo maray mobilka aan u dhigay horta meesha uu istaagay oo xabad ku laadi bareer cadoon u dilay bas aniga markaas mar labaad aniga inuu ugu darowrabay aniga waa ugu tabtay masaajidkan ku orday masaajidka markaan ku orday dadka masaajidka ay soo baxeen ninkaan rooro isdaaray oo soo rooray waa soo baxay taliyaa roob lay waay ninka ma taqaana waa qaana waa afgooyo jooga idinka waay ee soo wajiga laga xiraa soo baxa waay haddii imaw taliyaa ilaahay waa u tagay saan u raadinay ilaa 9 saac waxaan ka soo qabanay goob noo sugid ah asoo ku jira hadda ciidanka oo dhan liyo soo bixiyay asaga meel gooni oo tugaaro u dhax galay aan ka soo bixiyay adiga horta salaadaas salaad duhray hore ma u taqaan asiga asoo mobil ay dhowr mar arkay asoo mobil ay dhowr mar arkay dhowr mar asoo mobil ay magaalada dhaxdeeda mobil ku dhacay webiga dhaxdiisa mobil ku dhacay dhowr mar arkay qofka oo ku dhagnay oo leedahay muxuu ka rabay mobilka dhigo leh dhig mobilka Fatxi markii hadii uu mobilka tuuray maxaa loo dilay Fatxi mobilka waxa loo dilay Fatxi markaa mobilkiisa anaa ka qaaday ninka anaa u tuuray waxaan rabay ninba sibir rabaa Soomaa waxaan rabay mobilka inuu u dugo aan ku kortag labaana waa hal qafood oo guriga nooga imaaday waay ileen qofkii hadda iyo waqtiga soo dhamaaday Fatxi ya geeska mobilka isla mareen ninkaan mobilka qaad meesha ku la xabado ku qaaday Fatxi mobilka isla markii aadamay isla markii Fatxi mobilka aaday ileen meesha ku qaadanaya mana duuyi karin kan hor soo taageen Soomaa ninkaan qoriyo wataa inuu ku soo fariisto iga fakato dhow yaad iga fakato bareer cadow dilay waxa ku fakatay ma jirto wax kama in la ma jirto bareer cadow dilay anay ugu katibta labaad oo ka orday masaajidka orday su'aal daw diinaysa bukaat maadaama hadafku uu ahaa mobilka markii loo tuuro in qoriga laga qaato meeqan ina dhameeyeen labo masaajidka soo baxay labadii nin oo aad ahaydeen ma ku guuleysatay qoriga ka qaadatan ma ku guuleysatay aniga guuleystay ma jirtaa ninka oo Allah naxariistay qoriga ku dhacay manaha dhintay inuu la qabsaday ma jirto haram aniga taas ma jirto mana dhicin tilaabadii oo aad rabteen inaad macnaha qoriga aad ka qaadaan marka isku daydeen wuu idin fahmay Soomaa mana fahmin waqtiga socda ninka mobilka la hay Fatxi la meesha soo maray
ninkaan moobeelka meelo u dugo oo meelo u dhaqaaq male moobeelka meelo ku qaata male wuxuu lahay ninkaan webiga xabad naga ku siiyey meelo u qaata male aniga gadaal ka joogaa ninkaan moobeelka la hore ka joogaa waxaa horeeya moobeelka koowaad waxaa laga qaata tabliiqa saas oo maa tabliiq waxba la maqaan ana ka tabliiq baxanay adigana waxba lagama qaadan anna waxay maqaan marxuumka dhintaa moobeelkiisa ka qaaday waa u tuur taas oo maa waa u tuur haa inuu qaato dhulku u duga rabe oo aan ku kor tagno qoreen ka qaadan go'aankayna waay hadafkeedna saas waa ها لكن ما نسقارن مرحوم كل دي ماشان سومري حبدو ku qaay ninkan wuxuu leeyahay qoriga markuu soo wareejinayay xabad iga fakatay ma haraamaga tahay taas ma fiirisay intaadan qoriga ka in isku dayna qoriga ka qaatan in qorigiisa amaanku furan yahay inuu halis ku jiro ma fiiriseen waligiis amaanku u furnay ko qaabka qoriga uu surnaa ma jirtaa inuu u surnaa garabka u surnaa asaga may aan qoriga u kayst markuu soo gaaro masaajid xabad ku soo gal luuq meel goolad waay markuu horeysay xabad naga soo hormariyay inuu masaajid ku jirnaadi maadaama aad sheegtay inaad aragtay dhowr jeer inuu wax dhacay ma la wadaagtay laamaha amniga u sheegtay taliyaha saldhigaal roob laha oobiga ma laga helaa ma qoran yahay waligeeda horay ma u taqiinay mukhtaar haa magaalada afgooy joogo may afgooy aragti ahaan marka laga baxo heeb ahaan iyo waxa uu yahay iyo horay ma u taqiin may ma aqaan deegaanka inta uu joogo taqriiban 3 sano kama badna Soomaa taas ma adeeg kartaas ciidanka uu ka tirsan yahay ma u tagtay ma uga ashtakootay adiga haa iyo maya waa maadsantahay aniga shaqaan ka imaaday gurigaan u socday webigaan soo dhex maray webiga iyo meesha fatal uu dilayna 3 boos oo kale u dhaxayso mar al markaa webigaan ka soo baxay dadkii xaafad waxayna inta isbaaraa taalayd injeera isku galina ha galino inta isbaaraa taalo moobeelka weynkaan soo bixi wiil yar oo waxaan guriga ii geyba waa soo baxay dadkaan isku dhex daray ninkaan waxaan arkaa iyo wiil kale marxuumka markaas ma la dilin ayagoo isku dhagan hadda si murunku soo laakiin waxa la wixii loo murmaa aniga ma maqlayn 3 boos oo noo dhaxay kabacdi oo arku samacna waa u jeedaa taleefana dhulka loo tuuri taleefanka mar al marka dhulka loo tuuri adiga 5 daqiiqo bacd xabada yeerti marxuumka ay qabatay marxuumka dhulka u dhacay ninkan marxuumka markuu dhacay dar gacanta ka qabtay koro u jeed intoo ka taabtay inuu nafku jirto kale markaasoo soo orday dhinacna uu soo orday dhinac webiga uu maray wiila ka daba orday wiilku waxaan aniyo ka joog ninkan qoriyo wata iyo ku dilinay webiga gale dhinacaas oo baxay marka intaas anigaan ogahay ninkan miyaasi waa kana ninkan inta fadhiyo haddii maantaas mobile weyn anaa baduubi lahay haddii mobile aan wada lahay ma qofka dhinta qoriga mula qabsaday may qori ma la qabsanin xaram wuxuu leeyahay xabaddu iga fakataan oo saan wareejinaya may mobilka mar al marka dhulka loo tuuri markaas xabaddu markuu tuuray oo fati uu ku tuuri mobilka marka dhulka uu qabsaday marka meesha dadku isku sheegayaan in aan isbaarataan dadka isku sheegayaan miya adiga ku sheegay anaa bali sheegay dadka xaafadda ay sheegay xaafadan deganay aniga wali injeer inta gelin isbaarataan dhinacaas kale mar marka waxayna meesha maraa marka mobilka ay darnaa mobilka wiil yar aniga la socday aan u dhiibay waxayna bax guriga geey adiga waa soo beel luuq hal meter meeshaan fadhiistay dhulkaan fadhiistay dadka oo dhan meesha laga wada fiirsaday filin amal nus saac markaan aadi nus saac ma dhamay marka xabadda ay yeertay okay su'aal daawadiin dad isku dhagay ama qoriga kula dhagay amaada jeedin amaada jeedin Soomaa waxa jira murun zaa'id ah jira laakiin codkaana maqlayn maan murun zaa'id ah jira muranka wuxuu ahaa ninkan in qoriga laga qaato saas oo ma aha saas ma aha mobilka markii loo tuuray mobilkii uu dabcay inuu aado kadib dad ku soo ordamaya may wax ma ku soo orday wax ku soo orday ma arkin mobilka marka wiil kale asaga la socday hadda inta markaadka fara mobilka markii loo dhiibay oo tuuray wuxuu waa kaas arqaad markaas aniga xabad markuu fati uu ku tuuray soo uu tuuri kartaa macnaha ma wuxuu diidan yahay mobilka dhulka lagu tuuro ma diidanaa mobilka markii aan marka dhulka loo tuuray mobilka marka dhulka oo dhacay ninkan waxana markaas xabad oo tuuray kasima uu tuuray dhinac uu tuuray madax meelaha ma ka aadin dhinac uu aadin mobilka marxuumka ma dhulka ku tuuray mobilka marxuumka ku tuuray marxuumka dhulka ku tuuray kadib marxuumkii xabadda ku riday marxuumka xabadda ay qabatay markuu ku ridayo xabadda ku dhacaysay adiga ma arkayn Soomaa waa arkay meeshaan ma joog luuqa ma joog baan filan ma la fiirsaybe hadalkaaga waxaa ku jiray taleefon in la tuuray kadib xabad la riday ka hor muran inuu dhacayay isqabqabsasho inay jirtay sax Soomaa isqabsashadaas yaa isqabsaday marka waxa isqabsaday ninka oo marxuumka iyo ninkan iyo maya wiilka kale oo markaati ahay wiilkaas dhaxdooda ku jiray wuxuu leeyahay ninkan kan wax ma qaadi qarey markaas wuxuu yahay waa kaas arqaad waa fatixu mobilka aniga isii ninkan in la qabsaday ma jirtaa oo qabso dagaal ahana in la qabsado qoriga la qaado may
waa dhaaratay ما قري ما لا خلصني okay ciidanku ka tirsan yahayna waa taqaana ما إذا كيس موجود soo qoray wata maarka jirta سو قري ود هذا سو ماكينة معشرة قدامنا يا أركي والعك قاضي waxaa dhintaa la dhahay fatxi yaa dhinta fatxi arrintiisa dhacdaas maxaa ka ogtaa si wax u dhicin بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما عدا وكل شيء بأجل مسمى فليصبر وليحتسب دعاذا سي قوبجو كان هاي مساعد كان قصبان عبد القادر دعاذا سي قوبجو كان هاي مساعد كان قصبان عبد القادر صلاة الظهر كان قصبان ونسود كان ويسدان قبنو مالن لحي طبعا بشي لوات كن لحي لواتنك مالن أسنين أتي آيتي أنا إيو مرحوم كدمدي مساعد كان يورتيس هاي قداشي هاي صباني إسكمركي مساعد كان صباني أيا وهان عرفني ننقوري وددو كديب أيا قوري ودد واسك صبي دينا ويسك صبي دونك سوكوري ودد ميشك تال ودد وين واي كديب أيا أنا يفت إسلا روكنو أيا سنين كان كوي قوري وددو كديب واس لي أنيس ويدي تلفون مود أن تلفون صوتي تلفون مود مرحوم كمركا تلفون قد عنسك ودد وسدا أنت أنا خميس إنجري كديب تلفون نكن عنسك ودد نكن تلفون جيم كساري عن تلفون شان تلفون مود عندي مرحوم كإسكمركي وسنة تلفون جداس كاي كان ورياو لقداشي السهاي مرحوم كديب أيا كمدا أتكاي دي مديوس دي إسكمركي دودي مجيش أنا مشينا وكمرمان بجك يوسف كوي إسكمركي يوسف مجيس كوي أنا مركي يالي نك أوريلا واسداي دوك أنا مركي يوسف واسداي بح وريا ورجيك كبح ورجيك به وسو أنبت إلى به شن تلعب ممكن قاعد مرحوم كي أسوي دودو يا يوسف دودو يا أيا إسكمركي حبة وانا دوي yaa ku dhow أوريلا maxaa sababa in la dhow تلفون كشان إمشينا ودود مه تلينكو أدم تلفون جي شان لده يسون مسألة مديو مداو نينك تلفون قد ياو مرك ما يسون السوبية دود مجيبات إن حبت جم adi mobile mudan miya ما يا adiga mobilkaaga aw أنا موبايل كي يريش كله ودينه تلفون يرى ودي mar rabi ma yariiska mar rabaa si يريش مرو موبايل وين والجويا وسربه بس جويا mobilka isiya ku dhacday ma ku weydiiyey أنا ما يريش لين ودي دي اسم مرك يريش لين ودي يريش كي مجيء غرقي نكن تلفون وين ده شيء سهاي مر تلفون وين سود اسمع لك مرهم كلا ناريسو كدي بيا تلفون كم مجيء كسر نكن مراري كاسلس ورجي قالي يوسف بيشك صبي بحث دي يوسف كدي أنا يوسف ورجي قال صبي شن تلعب قال حبض وانا دبي كدي وانا سراري غرغر ده من سوبنا وانا سوف كدي سراري adiga yuusufa bax ku dhahay يوسف ديك كلمات كوي واي adiga afgoy deegaan ma ku tamis jamaaca ahaan u joogtaa أفقوي دقيقة كاي أنا بعد دقيقة حافظي واي با تبليك عام إنسان أنا بعد دقيقة أفقوي من كاي واي khuruuj ma ku joogto khuruuj خروج بكرو khuruuj ma baxdiga ها ما يقبر هرجيس كبيه جيجيج كبيه توبي كبيه بوساسو أنت عبيل كبيه تضاو سر تبليك عاي saas su'aal da ku weydiinaysaa waqtiga marxuumka la digaayo adiga iyo marxuumka waa soo socotay soo ma استروق دي با intee ka soo baxday مساعد كان صوب بن عبد القادر masaajidka maxaa kusoo tukatay صلاة الدورة صدقني صلاة الدورة صدقني eedeysana markaa la kulmaysaan salaad buu tukanaya isaga صلاة بدو كذا النقاس مايا وهابس كسبه لأن عن دون بس كسبه دون وده السهاي صلاة بدو كذا من لا صدقني marka koowaad adiga aad aragtay eedeysana maxaa dareentay أنا أبسط درامي ممكن أرجعه maxaa u cabsooday قولي سودادي وقت أيضا سؤال جل معانا قولي سودادي صلاة دور مقاس لك صباني مقيس قارد كصبي إسكمر كين عرقي مرهم كأرتيس كج وعبا أسكار كويني كدي بيا مركا موبايلك شالسني بلاوي وركلا من ويدينه أنت تلفون جار لي مودن دي تلفون جار نينك دانس كود إسكمر كي قداش يسوهاي كم عرقي أنا مركا كي يدا كبي دوجي يوسف فاست بح وريا وريا كبح أمبت سويله أمبي شن تلعب قاعد مرهم كي جاي دو ديسك قاعد تلفون كون قاعد rag ku talagalay inay qoriga ka qaataan rabay way jiraan Soomaa dad no big sama bajirabo sina absadaan le qoridan absadaan nink andawoodi amal Yusuf xilligaas waa taagnaa Soomaa bajak ha arugi Yusuf iyo teamka markay ay rabeen inay qoriga ka qaataan adiga maad ogeyn Soomaa rogi waliba ninka habada koom gisgami onis qoriga dan niso tosi oo adale habada ku hiranti qoriga habada ku hiranti mumki dhiya wayti kadib waasday marka ninkan roori ma habadi koom gisgami halas day marhumka dhimadi untiidana ka hiranti markii hore oo iimaanayay oo mobilkeen u dhahay qoriga garabka u surnaa Soomaa maya asni aragiba kooy qoriga garab sarjida mugis kooy nin qorinkii gaban mobil ma ku qaado korba nin garab iyo qoriga mobil shan siyale qoriga soo bi si saweel mar mugasan qalqalnawne qoriga diyaasadi xabada dhacday hal xabada ee hal haba bas Yusuf iyo marxuumka ma iskayaan wal miskin ayaan
adii hore in aragti jirtay maaha weligay ma aragna kan weligaa ma arag weligay ma aragna afgooyaan roogta ana ciidan si ay keen wajijeen ka samee hal mar ninka arag wadum koraan wajijeen ka samee wajijey seelka karaday bal maxkamadda in sheegto wajijey an ka samee nin oo wada hadashan shuute kadib ka dhibay baana in askas qoyt ma ka dhibaa ka samee wajijey iska markii aragi kadib ayaan alay ninkan waay kasi wajijeen kasi adii tababar hore in qaadad jirtay tababar oo ciidan ciidan in kasaasam is horogna baanus marxuumka Allah in xariiso amiin shaqada u sahay jirka marxuumka macallin balooni waay macallin sadatan ay xaafadana oo kase balooni oo xaafada ka dheelaas kooxda day hal dhaaw asbaali jeedan ayabo tiyaata danka murugooni macallin balooni marxuumka iskreera itan ma maya geelkan da foof ma kulun waliga iskreer maan adiga intee joogtay wax u dhaceen afgooyanka tagi baal guraan u socday ninkaanoo qorisoo sitoo oo macnaa nin kasta oo arka oo ka taagayaan arkay ninkaan markii ani asiga aan ismoodni waxaa lay dhahay macnaa ninkaan qofaas naga soo dhacday adeernoo la qabo xabadda kalen anaa iigu soo leebdhacdiye ninkaan xabad kale ma watiye macnaa noola qabaa lay dhahay markii soo jeesti waxaas dhex galay beer oo macnaa oo teedan oo macnaa cimbi iyo liin iyo ku joogto macnaa oo teedan beertaasaas dhex barbari beertii markii dhex galnay bartiisaan waani waa iska naqani mid macnaa qofkii dhaawac aan qaadnay isbitaalkaan geynay isbitaalka markii oo aan ku soo qaadnay ambalaas aan soo saarnay konton oo tilaab amalooti markii oo soo socotay ambalaasta ninkii waa naf baxay waxaa cali rooble aan u geynay saldhigga booliska cali rooble macnaa waxaan dhahnay macnaa adaa oo macnaa shacabka dhibkiisa in aad ku talisid laga rabaa macnaa qofkaan macnaa ciidana naga soo dili macnaa dhibkaan wax noo qabo haddii kale miidkaan intaas ku boqaan saldhigga booliskaan geynay dhaqaaq weyna sameey CID afgooy aan tagnay macnaa CID afgooy waxayna la qabatay khayr ilaahay siiyo ninkii oo macnaa meel kasta ilaa macnaa oo bar control kasta oo lagu soo waayay waxaa lagu soo heli hadda waaye nabad sugidda asoo qaadanaya lagu soo qabtay wabilaahi towfiiq taasaan ogsoon yahay yani macnaa qof oo xabad aas ku dhufti ma arkin laakiin oo soo qori oo meel kasta ku taagayo baabawsan kaasaan arkay ilmihii waa la bursaday jafaas iyo gaali markuu ka hor imaanay marka soo ahay nooco ahay qoryaas nimka taagay macnaa ani waafla way tan hadda macnaa oo intii ku soo jaahay intii asiga macnaa oo dhinac ooga baxay waa tan macnaa meel oo macnaa dhaawac iga ah waay waafla waay maxaa ku gaarsiiyey waafla meel oo ood ku dhisan oo macnaa oo ku teedan macnaa oodaas ay jaahay asaka carraysa haa ninka dhinta ma taqaanaa muxuu ahaa ninka dhinta ana macnaa meeshaas qaxan ku imaaday ma isnaqaan si kale ma aqaanaan ninkaas aadoo masanta iska dhigay fariis duur marka laga soo baxay xaafada dib ka dhacan ka soo baxaniga waxaan socday suuqa alaabaan watay ninkaas ay igu riibid marka ciyaal yar oo ka ordaya igu riibid waxaan sirrinkan waxba kuma dhahay nin weyn aad ku dhaafaya waa istaag maxaa dhacan maxaa socod keenaysaa istaag waa taagnay waxay weydiiyaan marka kaas yiri inta u socotaa waraar socodkayga shaqo kuma leeyahay maxaa danoo leedahay ii sheeg shaatiga kor u qaaday waa qaaday marka waxaan shaatiga kor iga qaaday maxaa iga ka xiran oo iga garata aniga markaas wuxuu jeekimaayay inaan telefoon weyn wato in kaluu jeekimaayay ana telefoon yana jeebka ugu jirin ilaa hadda aan wato kala jeebka ugu jiro kaas ka telefoonkaaga maxaa kaa soo galay qoriga uu wato marka caloosh juk iga siiyay marka gadaal way istaagay waxaan adeero ninka weyn ee ku dhali karay gacmaha jabanaan ahay telefoonka ee guriga ka galinay gadaal iga daway markaan arkay ninkan inaan iga soconin oo dan gaar iga leeyahay ama uu rabo inuu i dhibaateeyaba aan telefoonka soo bixiyay gacantaas saas ugu qabtay telefoonku daf iga sii xiri ma soconaya waa soconaysaa rusuucadii kale waa dhacaysaa khalaas marka dalacadaan soo fulay dalacadda markaan waa soo dhaaqay webigaan kasoo gudbay dalacadaan soo fulay ninkan way dhaafay suuqan saa usoo galay xoogaa markaan soo socday bug baan maqlay waxba kama dhigan waa iska socday magaaladan galay markaan tegay iskooyska jaadkii waxa lagu gado hilibkii waxa suuqa gudiisaan galay aan wax maqlayaa marka nina xaafidda lagu dilay waxba kama dhigan in aad kulleyba yarka ilaahay kuma darnaada nin balaayar oo la yaqaano caan oo degmada banaadir iyo shabeellada hoose caan ku ahaa dadka dhan wada yaqaaniin marka waxaan niyow qofka la dilay war hebel la dilay waa istaalka marka degmadii dhan bay istaalka u soo carartay marka ana dadka degmada oo soo istaalka soo aadaan ku jiray
meeshaan midoo dadkii baa kolleyba adiga meydkii waxaa la fiirfiiriyey ninka inuu dhaawacayaa la sheegay dadka markaa soo cararay meeshii midaan ka mid ah aniga markii la soo kala baxay iska soo daneystaan soo baxay magaalada soo galay goor adigu 11 saac bar camal ay tahay yaan waxaan maqlayaa ninka dila waa la qabtay marka dadkii dhan baa soo yaacay marka saldhigga xaggiisa la soo aaday si ninkaan loo arko ana dadkaa soo cararan ku jira saldhigga soo aaday marka meeshadaan ninkaan la wado jeebeysan ruuxaan ninka mobilkayga dhacay waaba kanahay ninka dilay ma isaga oo ninka dilay kaasaan gudaha galay marka oobigaan galay riboodkaan dhiibay riboodkaa laga qoray si wax jiraan oo sheegay kadib waa la soo fasaxay intaas wax jiraan mobilka oo ka qaatay noocee waa ku soo celish macna asagoo kala soo gatay muxuu soo celin kan wax soo hadaysta waa ninkan waa bareeray inuu wax dhacay ma santahay iska dhig alaabta ii fariis arrintaas maxaa kala socotaa shay wax u dhicin maxaa ogtahay fatay waa iga soo hormaray hal masaajid aan ku wada dukanay ayadoo duhur ay tahay meesha xoogaa ku sheekaysanay waa iga soo hormaray gadaashiisa aan soo baxay kadib waxaan arkay nin askari oo dhar ciidan wato qori ku hayo wiilkan Yuusuf Aliin uu la taagan yahay bas ani waxaan dhahay markan qofkan waa la heestay adna ku dhigay dibankan gabbo waan ka gabbaday meelaha ka fiirsanay bas hadalkoodin ay soo gaareen laakiin waa hadlay kadib waxaan arkaa marxuumka oo telefoonkiis Yuusuf ka qaaday Yuusuf markuu ka qaaday kadib ninkan hal habadu ku dhuftay taasaan sheegi karaa marxuumka istaqaanin miyaade muxuu qaban jiray mobil uu gadgadi jiray ayartoyna waa mobiladuna gadgadi jiray ayartoyna waa aad markaas xaq qabataa oo ka sheekaysiin aniga aan beerley ah mobilka markuu Yuusuf ka qaaday maxaa xabada keen in lagu dhiftan marxuumka ma aqaan anu yaa keen Yuusuf aniga qaaday keen uu yiri saasa u maleynaa maana hadalkooda ima soo gaareen xaafadda magaceeda wax fal ku dhacay baalguri hay ma santahay fariisadeen insha Allah okay horta ninkani waa maxawsley oo joogto degmada Afgooy waxaan hoos timaadaa nabad sugid hadda barsiiskiisa la waday ciidan la xareer raba lagu diray okay shaqada uu sheegay waa la diray uu leeyahay cid u dirto ma jirto asaa iskiisu aad inuu fal dhacay oo qof dhintay mali yaa idin sheegay idinka waxaa soo wacay taliyaha saldhigga goor ay tahay taariikhda 16 bisha labaad galab 10 saac camal taliyaha saldhigga Cali Rablaay soo wacay wuxuu yiri mataanu waxaa jira askari dil geystay xeroodinka daraawiish iyo booliis waxaas oo ku soo wareegay xeradaada ay dhiman ma fahant ma waan ku yiri magarad waa yimid wuxuu yiri nin dheer oo tuutal oo harid leh ruuxaas waxa lagu aqoonsan karaa ma fahant ciidankan ku feelina qof ninka wax dilay yaqaan ay keen sidii uu keen ciidankan feeliyay ninkan feelka musu soo gal oo dhunto hal rab loo aqnay waa iska baxay wira bixinay difaaciyadan ku soo wareegayna difaac kamid oo ka tirsaneen asoo ku dhuumanaan bartan ku ark ninkii al roob la socda wuxuu yiri waa kana ninka dilay ma hubtaan ku yiri garbadu waan qad jeeb baan ku dhigi xabsigan dhiga saraakiishiidan waa markaas marqaatiyaashii wixii dhan markaas processka sida lagu marsiyo ninka la dilay ma lagu sheegay wuxuu ahaa ninka la dilay inuu shacab ahaa la sheegay laakiin anu ma ark ma aqoon mana aqoon hada ma santaas ka dhig alaabta ii fariis inuu gudoomiye markii aan baarnay kiiskan waxna ka qornay dhinacyo tagna goobta uu falka ka dhacay aan aragnay shahaadada dhimashada Isbitaal Madiina waxaan ku soo eedeynay inuu fal dil ah u geystay marxuum Fatxi Cabdullaahi Cabdi dilkaasna uu si kas ah yahay waxaan ku soo eedeynay qodobada kale ah 434 oo ah dil kas ah iyo 434 oo la akhriyay faqradiisa 17aad oo u geystay labada dhibano oo inay ka baxsadaan isku dayay oo kadib inuu dil oo rabay isku day dil ah iyo 484 oo ah dhac goobta ay wax ka dhaceen waa tagtay marxuumkii maada arkin Soomaal marxuumku dhintaa macnaha meed siidiyaan ugu keen asagiyo meeda lagu keen habraaceen la marsi xabad afsaar oo ka baxda miyaa soo mid ku jirtay xabada kaliya ka gashay dhabarka dal bidixna ka baxday oo qof uu ka wax ka qaatay oo aad aragtay ma jira Soomaal waa jirtaa A043 yaa laga qaatay waxa la marxuumka leh asi niclo waa niclaha inuu asi qaata hadda loogu shigsan yahay mobilkii oo ka tagay qabashadii la rabay in la qabto ayaa xabadu dhacdo Soomaal ma dhowr tilaab isku jireen mobilka markii loo tuuray inta ilaa halkaas camal isku jireen hadafka mobilka loo tuuray wuxuu ahaa in laga qaato qoriga uu wato Soomaal waa ku sheegay may ma jirtaa in lagu xiray Afgooy baarisna lagu sameeyay Afgooy intuu joogay may Afgooy lagu ma xirin baaris lagu ma sameeyay lagu ma subin ma kula soo xiriireen familkii ana mobil ugu dhiga soo sheegay
dable mise ajaay oo wata qori ak foodhisamana wuxuu dhac u aaday xaafadda baalguri ee degmada afgooye sanaha horay dhac wuxuu ugu geysan jiray xaafaddaas oo waa sida ay sheegeen maragyada gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh wuxuu moobeelo A04E iyo niicle tagna ah oo ka qala qaadanayay tabliiqa iyo marxuumka gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh kadibna waxaa meeshaas ku geeriyooday marxuumka marxuum Fatxi Cabdullaahi Cabdi geerida kadib gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaa dhacday in laga soo qabto isagoo isku qarinaya xerada nabadgelyada ee degmada afgooye qaybna uu ka qaatay taliyaha maxkamadda keenay ee sheegay qaabka lagu soo qabtay salaam waa kala markii la soo qabtay kadib xaafadda dilka uu ka dhacay ayaan rabaa in maxkamadda tuso waa xaafadan masjidkan waa masjidka uu sheegayo tabliiq duhurka looga soo baxay gudoomiye waxaa xusid mudan Allah u naxariistay marxuum Fatxi wuxuu soo dukaday waqtigaas salaad duhur uu weyse qabay waqtigaas wuxuu soo dukaday waa salaad duhur isla waqtigaas waxa la socday tabliiq oo Imraan oo ka tirsan jamaacada masjidka tabliiqa ah oo la socday waxaa ka dareemaysaa xaafadaha sida isku dhow yihiin hal qush haday dhahdo 99% ayagana waa kama markici karaan dilka meesha ka dhacay waxaana keenayo waa midda keenayso in meesha aan keenay ilaa 6 marag oo ka markacaysa kiiskan gudoomiye goobtan waa isla goobtii waa meesha moobilka looga qaatay marxuum xaafadaha sideeda kala duwan waa xaafad noocaasa xaafadda baalguri way guud ahaan qaabkaasi u taallaa maleh jackbonti oo eedaysanaha dad ku hubiyo mana lahan authority oo shaqa u aadayna ma jirto marxuumka meesha uu dhigay oo lagu dilay waa meeshaas Allah u naxariistay marxuum Fatxi waa kana sawirkiisa meesha uu xabadda uga dhuftay waa kilida halka ay ka baxdana waa doodka waxa ka baxay waa dhiigaas waxa ka daadsane waa eedaysane ajay warqadda dhimashada gudoomiye warqadan warqadda isbitaalka ah moobilka loo dilay loo dhibaateeyay Allah u naxariistay marxuum Fatxi waa moobilkan guud ahaan haddii kor u hado $100 ilaa $80 camal waa moobilka loo dilay mushaar ahaan wuxuu qaataa 270 iyo maasaad waa mushaari macmuusleeyo numbarka kood ku jiro gudoomiye dhacdo cajiib kale oo kiiska leeyahay waxa waaye oo cajiibka murugada leh waxa waaye qoyska Yuusuf oo meeshan ka hadlayay waxaa ka baxay 2 ruux oo aad muhiim u ah waxaa baxay aabbihi guriga sidoo kale waxaa baxay yaraanka guriga oo hadda meesha uu ka sheegay waa calooliyow iyo tiiraanyo xanuun badan geeri inta ku gashay haddana aabba loo sheegay aabba haddana uu geerida ku dhintay waxa sababay labada geeriba waxa waaye eedaysana jaywo aabbaha dhintay waa kana Allah u naxariisto waa marxuumka aabihiis marxuum Cabdullaahi Cabdi markuu dhintay kadib muuqaal laga duubay waaye gudoomiye muuqaalkan oo cadeeyahayo in aabba loo wado qabrigii loo wado ee dalka Sacuudiga intaasoo jamaacada ka qayb gashay Ilaahay u naxariisto marxuumkan waxa uu sababsaday waa naxdinta wiilkiisii yaraa ciyaartooyga ahaa ee naadiga bariga dhex u dheeli jiray xaafadii dhalinyaradeeda naadi dayax liiraa u sameeyay ee macalinka ahaa ee masaajidkaas duhur ku tukanayay ilaahaygiisa caabudayay waxaa dilay waa ninkaas maxkamadda hortaagan ee mushaarkiisa qaata mushaarka uu qaato waa moobeelada uu sameeyo waxa laga qaado ayaa mushaar u ah waa canshuurti qorgo uu ku diray gudoomiye waa tan warqadda shahaadada dhimashada marxuumka oo dalka Sacuudiga ku geeriyooday intaas ku soo gabagabeynaa marxuumku walaalkiisa ah marxuumka horta noogu waran wuxuu qaban jiray taariikhdiisa ka bilaab horta anagu waxaan nahay 5 wiil iyo 5 gabar marxuumku wuxuu ahaa wiilashkan ugu yar oo ahaa oo aabana jeclaa wuxuu qaban jiray anuu ila shaqayn jiray markii hore wuxuu ahaa bajaajle markii uu arkay inaysan waxba soconin marka anuu ila shaqaynay oo waxaan ku shaqaynaynay xamarweyne moobeeladan gadi jirnay waana farsameyn jirnay marxuumka maalinta oo la dilaayo maalinta isniinta muusan imaanin anay aabbo isla hadalnay Fatxi aaway maanta weli ma ku imaan may weli ma imaan laakiin waa imaana insha Allah halkaas maalin oo maqnaa oo maqnaanshahan oo dilku u baxay waa inta kale buu joogay oo
waa ganacsanayne markaasaa isoo gaartay walaalkaagi fatxi xabadaa lagu dhuftay saas markaan u maqlay intee loogu dhuftay kelidaa loogu dhuftay yaa ku dhuftay askariyaa ku dhuftay oo moobeelka qaadanayo ma dhintay mise dhaawac waaye markaasaan dhahay hay hala soo dedejiyo digfeeraan kusii sugaa yacni si oo degdeg wax looga qabto haddii dhaawiciis wax laga qaban karo bis waxaan ka dhameen 10 daqiiqo kadib waxaa lasoo inta kan la sheegin ka hor waa sheegay aabaan wacay markaasaan dhahay fatxi xabad lagu dhuftay saas ula soco wax yar kadib waxaa isoo gaartay marka fatxi waa dhintay macquul maan haddaa dhehayseen dhaawac waaye soo dedejiyo oo hala jeekin gareeyo markaasay idhahan dadka meesha joogay ninkan wuu dhintay iska cafi walaalkaagi waa dhintay markii la dhahay aabaan wacay markaasaan dhahay hey fatxi wuu dhintay allah u naxariisto markaasuu dhahay waa dhintay ahaa wuuna jeclaa intaan hadda aan joogno dhan asaa ugu yaraa asaan ugu jeclaa aabu wuxuu tagay sacuudiga asoo dhalinyaro ah 20 jir ah haddana 69 ku dhintay markasoo imaada agtiisoo yacni joogi jiray anaga agteen xitaa isku mahaleyn jireen si fiican ay isku fahamsanaayeen saan markuu u dhintay waa sheegay aabo fatxi uu dhintay ilaa u naxariisto haddaa la soo xaqiijiyey 10 daqiiqo u dhamaa waa baxay ninkii haddana raacay oo geeridii inaa xaqiijiyo oo lasoo qaado CID-dii lasoo marsiiyo markaas dilaagii wuu baxsaday ilaa dilaaga laga helaayo meydkayna meesha hanoo yaalo ama dilaagii hala keeno ama meydkii meesha ha yaalo oo firinjeera la gelinaa ciidamadii si fiican wax badan way rafteen khayr Allah siiyo dilaagii ay soo qabteen hala soo gudbiyaan dhaay marka intuu meesha yaal marka aab markaan u sheegay nus saac kadib waxaa isoo gaartay aab wuu dhintay markaasaa leedahay aab wuu dhintay haano tan ka fajacsantii oo yarkan ka fajacsan tii aabaa igu sii darsantay meelaan wax dhigaan waaye marka geeridii ugu xanuunka badneed weli ma isoo marin mana filaa inay isoo marto wiil oo walaalkayga isku aabaan nahay oo naqaan ماشي wax lagu qaban lahaa taagantahay war hadalka wad hadalka waxaad yani Yusuf hada aabaa dhintay aabuu fiicnaa markuu kula hadlay aab dhiikaro qabe sokoro qabe waxaan in loo sheego waa laga fiicnaa laakiin qadar ay maatay hadhow waa la qabsanaa waa u sheegay markaan u sheegay kadib ما قان مركا هذا يعني آمنوا ما هن قف أو إسك عادي ما هن يعني نبحو وسيس على دت هاي واي انتاس طبعا روحوا وهذا بيلاي هذا واحد بملوك بهند بيل كان هذا سيدين لا عرور تكتجايو يعني وحياة مر خاركو كعنايو وواح أو لو دول قادن كرين واي أو هذا السوشيال ميديا أكو عرفتيت وحياة قار دعايو مركا مدن قدوميو gacan ku dhiglihii wuu joogaa cadaaladiina waan u jeednaa sida quruxda badan inay u socoto waxaan ka codsan lahayn cadaaladda sida la rabay in la nooga qabto insha Allah walaka asiga sporti oo haymiya sporti oo ahaa macallin sporti oo ahaa inta wuxuu ugu soo wareegsaday 5 ciyaala ka baahan 5 ciyaal ka baahan sport wax mu taray anaana ka dhaadhiciyay inuu wax qabsado waa inuu kala socotay hadda موبايلكو وتي موبايل انت او كقاتي اهات او وحو قاتي مال ما كهر او قاتي موبايل لا انت جرت درتد marka موبايلكاسina wax loo dili xitaa ma aan haduu aan fahmi lahaa xitaa موبايلka waa la siin lahaa haduu ninkan nagu dilaayo موبايلكاسina موبايل isku dila ma ahan موبايل oo wax goynayna ma ahan oo hada qof loo dili karan ma ahan A04E wax hada oo joogan ma lahan $20 xitaa ma joogo marka haduu dhila xitaa موبايلkaas aan rabaa maadaama qadarta ay qoran tahay meesheedii waay laakiin wax loo dilo ma ahan oo qof nafsadiisa loo dhaafsiiyo ma ahayn maxkamad waxa ka dalbanaysaa marka cadaaladaan ka dalbanaynaa maxkamadda cadaalad insha Allah aad ma santay Ifris gudoomiye garsooraha maxkamad sharafta leh eedeysanaha wuxuu dilay marxuum Fatxi Cabdullaahi Cabdi oo ahaa ciyaaryahan hore ee ka tirsan naadiga bariga dhexe ee ka dhashay horyaalada dalka haddana wuxuu ahaa macallin koox ka dhisan xaafadda Baalguri ee degmada Afgooye
waxaana la dhahaa naadiga dayax mudug gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh waxaan cadeynay sababta loo dilay oo maragyadu meeshan ay ka marakaceen waxa cajiib ah mudug gudoomiye in eedeysanaha aan loo dilin mobilku ii diid aan loo dilin mobilku isku dhijiyay waxa loo dilay waxa waaye ma aniga laangaab ah marka mobilka ku soo tuuray dhulka ka soo qaaday jeebkii gali ninku dhacaayo oo ku awood sheeganayo oo qoray wato haddana ku dhahayo mobilkan aan ka dhicay jeebkii gali waa arrin cajiiba oo khatar ah oo yaab leh oo mushkilo ah marxuumku waxaas ayaa loo dilay intii uuna soo gaarinna waa dilay jeebka uu galrabiyo waa sii dilay marka waxa cajiiba mudug gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh eedeysanaha waxa ku maqan laba ruux kuma eedeysna kaliya in uu dilay marxuum Fatxi Cabdullaahi Cabdi sidoo kale wuxuu sabab u ahaa uu sababteeda lahaa in uu dilo marxuum Cabdullaahi Cabdi Muuse oo aabbaha marxuumka sababtii ka dhalatay dilkii uu geystay wiilkiisa ayuu asna u dhintay that means Dabla Nisa Mukhtaar waxa uu geystay dil laba ah dilka koowaad oo asiga mubaashir u geystay oo si toos ah u geystay dilka labaad oo ah dil uu sababteeda uu lahaa kadib markii uu dilay marxuumka wiilkiisa marxuumka dhintay marxuum Cabdullaahi Cabdi wiilkiisa oo ahaa Fatxi Cabdullaahi Cabdi maxkamadda marka waa laba ruux ayaa meesha ku maqan labada ruuxna waqtiga ay dhinteen waa 16 bishii labaad 2020 iyo waa one day hal maalin wiilkaaga yaraankaaga la dilay masaajid soo baxay la dilay موبايل يريسا اللودري يا وارنت الله ونحرس مرحوم عبد الله عبدي انت مرك انت اسمك لو شيء مرحوم عبد الله عبدي وارنت سببتها وقول انت محاور يران كيسا للدلي وحنا الدلي دبل النساء مختار شكور امين جاي ودقدومي محكمته waxaa keenay oo hor keenay maxkamadda iyagoo ka marqaati kacaayo Yuusuf Sheekh Nuur Imraan محمد عبد القادر جيلاني محمد عبد الله محمد ورسمه انت صدم محكمة لو وداغني صبر كمرحوم محكمة لو وداغني كمو اها مرحوم فتحي محكمة لو وداغني ابها دنتي انو دنت ما حقيجناyo waxaan keenay muuqaal sidoo loo wada qubuurihi baqiic ee dalka Sacuudi sidoo kale waxaan keenay gudoomiye sawiradii iyo shahaadada dhimashada ee dalka Sacuudi ka soo baxay taas oo ku cadeynayso in marxuumka aabihiina uu dhintay sababtan uu ahaa dabla nisa mukhtaar shakuur amiin jaay maxkamadda sharaf kale waxaan ka codsanaynaa intaas marka aragnay waxaan ku soo eedeynay aayadda 178 suuratul baqara aayadda 45 iyo qodobka 434 gudoomiye xafiiska xalaalinta ciidamada qalabka sida wuxuu codsanayaa in maxkamadda ay ku xukunto dil toogasho ah oo qisaastii labada marxuum ee kala ah مرحوم فتحي عبد الله عبد يو عبد الله عبد موسى او ابها مرحوم فتحي تاس او سببتي اسغو لها انو غيريو وإلهي كسو اسغ شيغتانka iyo dilka uu geystay wiilkiisi Fatxi عبد الله عبد maxkamadda ma santa marka koowaad madan gudoomiye waxaan qareen oo ah Mukhtaar Shakuur Amiin Mukhtaar waxa lagu soo eedeeyay 434 oo ah fal kas ah falka kaska ah wuxuu u baahan yahay si waafaqsan shariicada islaamka laba marqaati oo dhehayso inuu kas u dilay ayaan marqaati kana marka dadka ay dhahayaan laba marqaatiyaasha la keena marka waxay sheegayaan in ninkan uu ku baxay ninkaas kala gacantiisa taas wax dooda kama taagna laakiin hadafku waxa waa kasnimada waxay u baahan tahay cudwaan ee sabab ilaa maxkamadda hadda waxaan la cadaynin sababta koos garaysa ama waxa sababay in marxuumka la dilo haddii mobile la yiraahdo mobilka dhulku yaala oo waa la tuura leeyahay haddii la yiraahdo aqoon isku dhaxaysa ama colaad ama cudwaan ka dhaxeeyay cid sheegta ma jirto bal iska wadaaya shubha la abuuray nabigeena wuxuu leeyahay idraa'ul udud bi shubhat shubhada la abuuray waxay ridaysaa ciqaabtii ahayd kaska oo shubhadu maxay tahay shubhadu waxay tahay Yuusuf wuxuu yiri sababta dhan oo aan u tuurno mobilka waxay ahayd inaan qoriga la qabsano ممكن إنه إسكس قرية لقبسجد وسكدايجاس إنه فهمي سووريتين تقرية وسووريتين هنا
inay ku dhacday suu asaguba sheegay asagu wuxuu sheegay in falku oga dhac si aan ku talagal ahayn oo qorigii uu soo wareejinay ay sababtay inuu maaragtaa ninkaas xabadda uga fakato ma inuu ku taagay inuusan ku taagin sababta keentay taas waa weyn kale laakiin caddayn fal kasnimo waxay u baahan tahay laba marqaati oo sheegayso can dariiq alcudwaan inuu falkan u dhacay mobeelaa la sheegay wax mobeeloo la qaatay oo hadda eedan ku qoranoo oo qof dhibanaha maanta yimid oo anaa dhibano ka ah dhahaya ma jiro sidaas daraaddeed falka fal tuugaana meesha maba ku qornaba ama fal dhaca xafiisku asoo og uu falkii dhacaa ka soo tegay macnaheedu waxa waaye fal dhaca ma jiro kow waxaa dhaca dilku hadduu kas yahay wixii sababay xafiisku muusa suuraynin wuxuu yidhi wuxuu rabay inuu wax qaato waxbaa sababi lahaa oo ahaa dagaal isku day dadka dhana mobeella laga qaataa qofna lama dilo marka gudoomiye nabiga calaih salaatu wasalaam xadiidkii ahaa idra ulxuduuda bishubahaat ayaa ka ridaayo inay jirto kasnimada falki waa dhacay ninkaas mas-uuliyadda inuu leeyahay dilka dhacay asagana uu maaragta qaadanayo diyadii ehelkiisuna ay diyaar u yihiin inay ka bixiyaan qur-aankuna uu leeyahay faman cufiya lahu min akhihi fatibaacun bilmacruuf taasna dariiqadeediyaa lagu jiraa wadadeediyaa lagu jiraa sida uu noo sheegay asagu wuxuu noo sheegay in heshiis iyo wadahadal uu jiro suu asagu noo sheegay sidoo kale waxaa jirto falkana su u dhacana wuu sheegay wax kale oo ka baxsan oo lagu eedaynayana ma jiro sidoo kale wuxuu noo sheegay falkii ugu horreeyey inay tahay weligiisna uusan dembi uu galay aysan jirin waxaa maxkamadda aan ku soo koobayaa mar haddii aysan jirin cid lid ku ah oo tabanayso cid lid ku ah oo sheeganayso inuu wax ka dhacay mar haddii markhaatiyaasi aysan cudwaanka ama kasnimada aysan ayagu safay karin ee u baahan tahay inuu ama asagu qirto ama la helo cudwaan ama history keeni karta inuu falkaas ayaan dhan diyaarinayay taasna aysan jirinin waxay sheegeen sidoo kale markhaatiyaashu inaysan aqoon hore u lahayn taasoo keenayso inuu wax sudfo ku dhacay ay tahay aysan ahayn wax la diyaariyey waxaa maxkamadda ka codsanaya kow ehelka ninkaas in diyada la dul saaro marka codsigii waxa waaye ninkaas maadaama fal hore uusan gelin wax horoo taariikh loo haysa aysan jirin waxaan wax degdeg ku dhacay yihiin falkii ugu horreeyay ay tahay maxkamadda inay u aragto wixii tacsiira waa gaar laakiin ay ka qaado falka ah dilka diyadii la dul saaray ehelka maxkamadda waa maasanta sidoo kale mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh dilka inuu dhacay isuma diidan laakiin waxaa la isku diidan yahay kayfiyada uu dhacay wuxuu isa saarayaa xafiiska xer ilaalinta allaha u naxariistee aabbo ku geeriyooday sacuudiga iyo dhacdada ka dhacday afgooye waa laba aan iskori karin wiilkii aabbaha dhalaa inta ka caddeeyey inuu aabbaha ahaa nin xanuunsan inuu ahaa nin dhiikar iyo mataqaanaa sokor iyo saaxiib la ahaa laakiin way dhici kartaa sababtiisii inuu u dhintay xanuunka iyo cudurkiisa bal macnaa waxaa isdiidaya in xafiisku uu soo qaato u dhaho labuu isku dilay aabbihii iyo wiilkii uu isku dilay xaashaa lilah maya dhacdada wiilka dhacday asagiyaaba qirsan oo sheegay oo dhahay waa iiga fakata xabaddaas anoo qorigayga la cabsanayo in layga qaato okay laakiin qofka sacuudiga joog waxyi moo ku baxay inta la qaaday la dheelmiyey mukhtaar sacuudiga la geeyey miya uu markaas aabbihii kusoo dilay haddana la soo celiyaa xamar la keenay taasuu naga dhaadhicinaa xafiiska waa waxaa la qaadan karin maxkamadduna aysan aqbali karin marka waxaa maxkamadda ka codsanayaa inaysan ka aqbalin xafiiska xel ilaalinta in mataqaanaa magta la dul saaro dhinaca eedeysanaha ehelkiisa maxkamadduna ay xorriyaddiisa dib uga celiso maxkamadda waa mahadsan tahay doodda ma dhegaysanayno maxaa ka fahan doodda meelo rumaan lagu sheegay meelo been lagu sheegay aan mobile ma dhacaan anoo socdo meesha yoo susuuniyo iska darani oobs darani tabletkan roori tablet hoobas roori tabletka ashaka geli tabletka hoobas roori marka ma yaray aniyo intaan roora haytay meel hada leen lama jiro ku bay tabletki awada haynaga dhab guriga ay gobsid guriga dhab beelsi markan ana gadaala aan bahay markan labada gacmaas goobay gadaala aan bahay gadaala bana bahay ma yareeniyo gadaala aan boodi gadaala bana boodi guriga afiis waa dabeys dhulka ka tooda sadway sayaal marka ma galay lankan guriga ko qaado fadaa lankan guriga niko qaado fadaa ma weelase ini guriga ku qaado guriga dusha inta ka wareejiso saar saddex dusha saaro saddex neew saddex ستين راي مركان فرتا ستين قاعد تقولي جاب أما قولوا هرابتي بفهم ما جفرناي
ستة بلاري مركان قروي فرتاي قش فرتاي بقش مركان حبادي بنت لين قاعد أنا بنت لين مر أنا برتون كوي مرت لانك أو ويا لا بري يعني خروج كبت إني كلا مشاكل ما بالي هذا إني أن بجاج ولا عشان رادي مركان واي هذا باي مرك ترسي الله مرك حرده كوي حرده بنكوي هذا قروج لهم بيرسلوكي لا أنا شيء كلمة لا حرد لك هرود ملكة اللعبة كلمة مكان waxaa maxkamad ku codsanaya maxkamad inii hurnimada inoo siido yaa fadee iyo fariis kiiska ka dhanka ah eedeysane mukhtaar shakuur amiin intaasoo ku dhan yahay maxkamadda go'aanka soo saarayso fadhigu waa xiran yahay